jaaniska ugu badan dhankayga haddaanan agtaada joogin adiga ku jilicsanaanin wadnaha iga goojo dhiiba ka jeetanaani xaggayga haddaan midin naasibto kurkiyo noloshaba taqaan ka naqaysan laablaha dookhaa igu kanabo niyadda kama jari kare naxliga caashaqa kada fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg ah oo aad ku farxday ilaahay ha ku siiyo ku soo biir xaqsoor TV muuqaalkana noole garee channelkana noogu soo biir wararkii ugu dambeeyay ayaan ka dabageenaya oo hadda soo dhacay xariir axmed oo u heesay nashaxi xayaad adiguba caqlaad leedahay cartanay camuud la iska qaad ceelka reer darar wadaga arkaya nashax waxa weeye oo la amaanay xariir axmed oo muuqaalo badan baahiyey oo baraha ku baahiyey bulshada wadaga arkaya sidoo ninkaas wax u kala wado iyo dad ku dhegan xaqiiqooyin dhab ayaynu halkan kusoo gudbinayna sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa waxa weeye cabdinuur oo sheer ogaadeen waxa weeye in lagu xiray waqtiyada ka mid a beriyihii dadka la xidhi jiray walaalkaas soomaaliyeed oo lug laga shabiyey ayaa waxa weeye lagu qalayaa maalinka berri toole ah dalkaasi hindiya wuxuu baraha bulshada kusoo daabaco dadka soomaaliyeed ka soo codsaday inay u soo duceeyaan oo weliba ilaahayna uu ku guuleeyo waxaan ku leenahay ilaahay walaalkeen cabdinuurow allah kugu guuleeyo sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa waxa weeyaan saamow ige runtii waa dhacdayaa badan aabba soomaaliyeed oo ku nool deegaanada kenya wuxuu baraha bulshada kusoo baahiyey 4 maalmood biyo keliya ayaan cabaayay 4 maalmood aabba soomaaliyeed oo waxa weeye walaalkeen ah ayaa 4 maalmood biyo keliya cabayay runtii waa murugo on ka murugooday anigu aad baan uga murugooday haddaba waxaan halkan kagala qaybsanayaa dhacdadan murugada badan dadka soomaaliyeed ee daafaha dowladda ku kala nool inay halkan kala xidhiidhaan oo isgarab taagaan waatay ku bixi jirtay sadaqadayso waxaad bixinayso tanna qari tanna ku bixi runtii muuqaalada aan baahino ee dadka aan ku caawino dad badan ayaa waxa weeye isgarab taagay oo geesiyaala walaal waxaan kaa codsanaya adigaagan daawadaha ahi la xidhiidh oo bartaa kala xidhiidh oo wac oo isgarab taag oo haddii aad awooddo u tag oo warayso oo sidai xaalkiisiiyo u tag cariirshar oo dundumay buu ku jiraa runtii wuxuu yidhi waxaan u baahanahay dadkaydii baan maanta u baahanahay haddaba la xidhiidh waanaga halkaa kuu soo dhigay sidoo kale halkaa waxaad ku aragtaa waxa weeyaan saki waxa uu ahaa madi saki yare iyo sawda oo inaguna la dilay saki waxa uu ahaa madi runtii dhacdooyinka yaabka badan ee ka dhacay muqdisho halkan kuma baahan karayno waa dhacdooyin xanuun badan oo bulshada soomaaliyeed ku taala ku noqotay walaalkii saki iyo sawda oo lagu dilay magaalada muqdisho ee gacanka xaq daran ku dishay ayaa waxa weeye ku taala ku noqotay dhammaan geyga soomaaliyeed oo aad u gilgashay shalay ilaa maanta haysata ilaahu godka kuu nuur baan ku leenahay hooyadiina samariya iman ka siiyo runtii waa dhacdayaa badan hooyadii waxay tiri keligay ayaa waxa weeyaan keligii ayaan dhalay wax inaan madibi u ahaa inan kale lamu dhalan inankiina waata maanta waxa weeyaan gacanka xaq dareen cunto inkastoo nimankii sida warbixinuhu sheegayaan la sheegayo in la xiray oo waxa weeye maxkamad lasoo taagi doono wararka yaabka badan ayaanu halkan ku faraqaynaynaa waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhammaad ila socod mar labaad baan kugu celinayaa aabba saam oo la xidhiidh oo isgarab taag waxaan kaa codsanayaa inaad waxaad awooddo u dirto waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan usii dirto dad kale oo raba inay oo diidayaya inay cid u diraan waxay sadaqadaystaan halkan kala xidhiidh waanaga halkaa kuu soo dhigay halka ugu horeysa muuqaalka waanaga kuu soo dhigay ee waxa weeyaan fadlan kala xidhiidh haddaba aynu ku soconnay walaalkan saki oo iyo sawda oo ah laba walaalo ahaa oo lagu cunay magaalada muqdisho oo gacan ka xaq daray hawada ku cuntay sida ay dadku sheegayaan waxaa arrintaas ka dambeeyey
gaari meesha marayay maadaama meel ciriiriya uu soo qalay gaarigu wuxuu rabay inuu samaysto waddo sida warbixinaha lagu soo qoray dabeetana waxay haleesheen rasaasuu furay labadan oo walaal ahaa waa dhacdayaa badan runtii hooyadiina waxay tidhi keligiiba dad nin dhalayba waa dhacdo murugo badan oo dadka soomaaliyeed qalbiyadooda taabatay runtii haddaba warkeenna waxaan ku soo qaadanaynaa warbixinteennii ugu horreysay ee xariir axmed iyo xayaad iyo nashax waxa weeyaan ninka ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee fanaan ah ee laba dumara guursada ee labadiiba is ogol yihiin fanaankii ugu horreeyey ee laba xaasla ah ee waxa weeyaan in labadiisa dumaraba ay is ogol yihiin xayaad iyo nashax runtii waxa weeyaan dad baa raba inay kala cunaan balse nin waxa weeyaan guuraystay oo waxa weeye waayuhu garab galay cidana waxba kama qaadan karto runtii dad fara badan baa doonaya inay xariir iyo hawada isku cunaan iyo waxa weeye nashax waadiga arkaya runtii isaga ayaa saa u soo qoray anigu soomaan qorin waa xariir ayaa sidaa usoo heesay xariir oo ammaanaya nashax oo haddana ammaanaya xayaad waa guul uu gaadhay markaad tahay qof horumaray hadal lahayntu waa sharaf sidaan ognahay xariir oo waxa weeye ay nashax sii wado haddana labadaa waxaan micnaha kaga soo qaadanaynaa qisada siduu ugu heesay iyo siduu u ammaanay waxaaba kasii weynba oo inoogu yaab badanba inuu yahay fanaankii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee laba dumara wada haya bal orodo soo hel fanaan kale oo soomaaliyeed waa ninka u haysta ee waxa weeye u xiday iskoorkaas u haysta weeyaan ee aanay cid kalena soo gaarin ka waran dhacdadaas waxay noqon kartaa runtii in qiso dheer laga diyaariyo gebidiisaba qiso ayay noqon kartaa runtii waayo waa sidaan ognahay fanaaniintu markay qaarkood isqabaan muddo aada u gaaban biraha ay isku dhuftaan oo way isu soo uraan gebigoodaba fanaaniin fara badan baa sidaan ognahay u nacay guurba waxay u naceen furiin iyo isqabqabsi iyo bara bulsho ku hadalhayn fanaaniintaa guurka nacay haddaan halkan kusoo bandhigo kama gayoonayna balse waa fanaaniin aanu baahanayn inaynu bartan ku baahino maadaamay dad walaalaheenna yihiin waxba soo dhigmayno balse haddaad qalbiga ka shaqaysiiso waa soo helaysaa fanaaniinta aan muddada dheerba guursan waana fanaanin rag iyo dumar isugu jira talow waa iyo fanaaniintan aan reeraha saxda ah aan samayn haddaba ninkan xariir axmed oo waxa weeyaan halyey ah oo waxa weeyaan magaaladu u shidan tahay oo waxa weeyaan ayaa waxa siduu hore ugu heesay nashax oo adiga arkaya maantana uu u heesaya haddana de waxa weeyaan waxba qaban kari karno runtii haddaba aan dib ugu noqono ee dhacdada waxa weeyaan aabbaha soomaaliyeed ee ku nool deegaanada keenaya runtii nolosha uu ku nool yahay markaad aragto runtii aad ayaad u murugoonaysaa ma soo qaadi karayo waayo waxa weeyaan meeshu ku nool yahay waxa weye waan ka anaa murugoodayba balse waa aniga halkaa kuu soo dhigay bartaad kala xidhiidhayso waxaan kuu hubaa wax allaale iyo waxaad u awoodda aad u dirto haddaad keenayaa joogtana u tagoo booqo ama la hadal oo waxaad tira aabbo intaasaan kuu soo diray awowga maadaama nin weyn yahay waxaad ku tidhaahda awow intaasaan kuu hayaa ee intaa waxa weye maanta wax ku cun intaa wax siiso wuxuu gogol siista xataa ma haysto wuxuu yidhi 4 maalmood biyo keliya suu qulaaminaya aaway dadkayga daafaha dunida ku kala noolaa waxaan u baahanaya inay soo kii garab taagaan sidoo kale walaalkaa soomaaliyeed ee maanta ku sugan dalkaasi hindiya wuxuu yidhi waxaan u baahanahay inaa isoo garab istaagtaan oo ay soo ducaysaan isagoo ku xidhan sheel ogaadeen ayaa lug laga soo shabiyey markaa maanta ayuu berri buu qalin gelayaa wuxuu yidhi ii soo duceeya waxaan ku leeyahay kusoo bir xaqsoor tv jaaniska ugu badan dhankayga haddaanan agtaada joogin adiga ku jilicsanaanin wadnaha iga goojudhiiba ka jeedsanaani xaggayga haddaan idin naasibto kurkiyo noloshaba taqaan ka naqaysan laablaha
doqa igu kanabo niyada kama jari kare